بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دبادة قضبادة وركينا جانالka Daily TV ugu door karoon waxaana ka mid noqonaya madaxweyne Farmaajo oo la kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump taliyaasha ciidamada militariga Soomaaliya oo digniin loo diray beelihii ku dagaalamay xeeraale oo kala saxiixday heshiis ka kooban 10 qodob dawladda oo sheegtay in ay dishay 30 xubnood oo shabaab ka tirsan Imaaraadka Carabta oo la wareegtay garoonka Boosaaso odayaasha koonfur galbeed oo sheegay in xayiraadda uu Farmaajo saaray Sheekh Shariif ay cadeen u tahay hal arin Kenya oo war ka soo saartay kulankii Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo ku dhexmaray dalka Mareykanka iyo Jubbaland oo shaacisay sababta dib loogu dhigay caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu door corona inta aan ugu gudagelin iyagii oo faahfaahsan waxaan idinka dalbanaynaa inaad channelkeena subscribe saartaan sidoo kale gambaleelka aad u furataan si aad uga madnaqataan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haddana u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan Jubbaland ayaa shaacisay sababta dib loogu dhigay caleemasaarka Axmed Madoobe maamulka Jubbaland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in dib u dhac uu ku yimid xafladii caleemasaarka madaxweynaha dib loogu doortay ee maamulkaasi Axmed Madoobe kadib war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska warfaafinta madaxtooyada Jubbaland war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xafladda dib loogu dhigay muddo kooban oo aan la cayimin waxaana xafladda lagu waday inay dhacdo 26 bishan oo ku beegan maalinta beri ah Jubbaland ayaa sababta loo baajiyay xafladda ku sheegtay kadib markii ay dowladda federaalka Soomaaliya is-horistaag ku sameysay wufuudii lagu casuumay xafladda taasoo ay ku tilmaantay inay tahay mid sharci darro ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xayiraad dheeri ah oo dhanka hawada ah waxa ay ku soo rogtay magaalada Kismaayo iyadoona sheegtay in muddo 3 maalmood ah aysan wax diyaarad ah ka degi karin magaalada Kismaayo dowladda Soomaaliya ayaa xayirtay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo doonayay inuu u dhoofo magaalada Kismaayo ee caasimadda Jubbaland waxayna arrintaasi keentay inay ka soo horjeestaan dhammaan qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta mucaaradka Kenya ayaa war ka soo saartay kulankii Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ku dhexmaray dalkaasi Mareykanka dowladda Kenya ayaa war ka soo saartay kulankii magaalada New York ku dhexmaray madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ee looga hadlay muranka badda ee labada dal wasiirka arrimaha dibadda Kenya Monica Juma ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ku muujisay inay ku faraxsan tahay in ugu dambeyn ay dhacday sidii ay Kenya doonaysay ahayd in midowga Afrika uu arrintan xaliyo Kenya waxay soo dhaweynaysaa kulankan oo ah kii koowaad waana tallaabo horey loogu qaaday jihada saxda ah ee Kenya waxayna mar waliba rumaysan tahay ama rumaynaysaa ayna sii wadi doontaa in ay ku baaqdo in wada hadallo ay yihiin habka ugu wanaagsan ee dhibaatooyinka Afrika loogu heli karo xal Afrikaan ah iyo tiri wada hadallada Farmaajo iyo Uhuru ayaa waxa soo qaban qaabiyay gudoomiyaha midowga Afrika ahna madaxweynaha Masar Abdul Fattah al-Sisi oo sidoo kalena goobjoog ka ahaa kulankaasi dowladda Soomaaliya ayaa horey u diiday in ururka midowga Afrika uu dhex galo labada dal ayna doonayso in lagu kala baxo maxkamad si kastaba ma cadda sababta uu Farmaajo u bedelay mowqifkii hore ee Soomaaliya inkasta oo filla Soomaaliya ay sheegtay in Farmaajo u sheegay Uhuru in kiiska maxkamadda sidiisii loo daayo odayaasha koonfur galbeed ayaa sheegay in xayiraad uu Farmaajo saaray Shariif ay cadeen u tahay hal arin qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa maanta shir ku yeeshay magaalada Baydhabo ayaa aad u cambaareeyay tallaabadii madaxweyne Farmaajo uu xayiraadda ku saaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed odayaasha koonfur galbeed ayaa Shariif Sheekh Axmed ku tilmaamay oday Soomaaliyeed oo nabadoon ah aadna u dulqaad badan waxayna tallaabada uu Farmaajo qaaday ku qeexeen mid cadeen u ah sida uu u awaal dhacay sida ay hadalkana u dhigeen waa nasiib daro aad u weyn in Farmaajo uu ka xishoon waayo ninkii isaga Mareykanka ka keenay oo ra'iisul wasaare ka dhigay ayay yiraahdeen odayaasha koonfur galbeed odayaasha ayaa sheegay in dhaqanka Farmaajo uu shabaho mid horey loo arkay tani waxay cadeen u tahay in Farmaajo uu rabo inuu dalkan ku hogaamiyo wixii shalay ay Soomaaliya isku dagaashay lagamana yeelayo taasi ay yiraahdeen odayaasha dhaqanka ee Baydhabo dhinaca kale odayaasha koonfur galbeed ayaa sheegay inay ka aqbaleen raarigelintii uu madaxweyne Shariif u sameeyay koonfur galbeed
uguna mahadcelinayaan. Imaaraadka Carabta ayaa la wareegtay garoonka Boosaaso. Khilaafkii u dhexeeyay Imaaraadka Carabta iyo Puntland ayaa u muuqda mid la xaliyay kadib markii Puntland ay ogolaatay inay fuliso dalabyo ay wadatay Imaaraadka Carabta, sidoo kalena Imaaraadka ay ballan qaadeen mashaariic dhowr ah. Waxyaabaha Imaaraadka Carabta ku guuleysteen waxaa ka mid ah in sarkaal ay aad isugu dhow yihiin loo magacaabo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Puntland ee BSI-da. Sarkaalkaas ayaa lagu magacaabaa Mukhtaar Jeyte, waana xubin firfircoon oo aad ugu dhow sirdoonka Imaaraadka ee Soomaaliya. Dikreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa Mukhtaar Jeyte loogu magacaabay agaasimaha nabad sugidda 20-kii bishan, iyada oo la shaaciyay 20-kii bishan, taas oo kalsooni gelisay Imaaraadka. Puntland ayaa sidoo kale ogolaatay in garoonka diyaaradaha Boosaaso lagu wareejiyo maamulkiisa iyo ammaankiisa shirkad ay mas'uul ka yihiin Imaaraadka Carabta, iyada oo Imaaraadkana ay maalgelinayaan mashaariic lagu ballaarinayo garoonkaasi. Magaalada Boosaaso waxaa ku sugnaa 2 beri ee u dambeeyay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta, kuwaas oo daba joogay fulinta dhammaan qodobada ay daneynayaan. Xubno ka soo jeeda qoyska madaxweyne Deni oo lagu kala magacaabo Xasan Deni, Mahad Deni iyo Cabdi Rabbi ayaa si weyn gadaal uga riixaya fulinta qorshaha Imaaraadka Carabtu ka leeyihiin Puntland. Imaaraadka Carabta ayaa faragelin toos ah ku haysa Soomaaliya, waxayna heshiisyo aan sharci ahayn la galeen maamul goboleedyada, iyadoona aysan ka warhayn dowladda dhexe ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay 30 xubnood oo ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab. Ciidanka militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ka badan 30 xubnood oo ka tirsanaa Al-Shabaab inay ku dileen howlgal ay ku sameeyeen inta u dhaxaysa deegaanada Ceelsaniini iyo Gandarshe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Saraakiisha ciidanka militariga oo warbaahinta u xaqiijiyay dilka xubnahan ka tirsanaa Al-Shabaab. Dilka ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay weerar ku qaadeen xarun ay Al-Shabaab ku sugnaayeen, sida qoraalka lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. Waxa ay sidoo kale sheegeen inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobolka Shabeellaha Hoose. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada ciidanka dowladda ee ku sugan Shabeellaha Hoose. Al-Shabaab ayaa dhowaan weerar ay ku qaadeen deegaanka Ceelsaniini ku dilay ciidamo badan, sidoo kalena qaatay gaadiid ay leeyihiin ciidankaasi. Beelihii ku dagaalamay Xeraale ayaa kala saxiixday heshiis ka kooban 10 qodob. Howlwadeenno ka socday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya, Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Guddiga Dib u Heshiisiinta Galmudug ayaa magaalada Xeraale ee gobolka Galgaduud uga qayb galay saxiixa heshiis lagu adkeynayay amniga oo qayb ka ah qorshaha dhaqangelinta heshiiskii nabadeed ee magaalada Dhuusamareeb ay ku kala saxiixdeen bulshada ku nool Xeraale iyo Huurshe. La taliyaha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ahna xiriiriyaha tubta siyaasadda loo dhan yahay Professor Yaxye Cali Hareeri ayaa munaasabadda ka akhriyay heshiiska oo ka kooban 10 qodob ayna saxiixeen guddigii loo xilsaaray dhammaystirka heshiiska nabadda ee reer Xeraale iyo reer Huurshe. Dhammaan dhinacyadii munaasabadda saxiixa joogay xeerka ka hadlay oo sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska la gaaray ayaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre uga mahadceliyay geedi socodkii guuleystay ee nabadda bulshada deegaanada Xeraale iyo Huurshe. Xildhibaan Zakariya Xasan Gaashaan oo ka mid ah mudanayaasha deegaan doorashadoodu tahay Xeraale oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa dhinacyada ugu baaqay in ay wadajir uga qayb qaataan ilaalinta heshiiska maanta la saxiixay si horumar loo gaaro looga baaqsado dib u dhac soo gaara bulshada iyo deegaanadaasi. Dadaalo nabadeed oo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre soo bilaabay dhammaadkii bishii Juun ee sanadkan ayaa bishan horaanteedii guul ku soo dhammaaday, waxaana magaalada Dhuusamareeb lagu saxiixay heshiis nabadeed oo lagu dhameeyay sanado colaad dhiig badan ku daatay oo u dhexeeyay bulshada ku nool Xeraale iyo Huurshe. Arrinta oo bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ay si wadajir ah u soo dhaweeyeen. Taliyayaasha ciidamada militariga ayaa digniin adag loo diray. Gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada militariga Soomaaliya, Korneyl Xasan Cali Nuur, ayaa sheegay in hadda wixii ka dambeeya loo maxkamadeyn doono askartii hubkooda cadow ka qaata.
waxa uu sheegay in askari walba lagula xisaabtami doono hubka loo dhiibay, isla markaana haddii al-shabaab ay soo weeraraan oo ay qaataan hubka in asaga laga rabo. Shuute ayaa taliyayaasha ciidamada ka dalbaday feejignaan dheeri ah si aysan u kordhin weerarada al-shabaab ay ku soo qaadayaan ciidamada dowladda. Taliye kasta ayuu sheegay in uu muteysan doono maxkamad haddii uusan la imaanin hogaamin iyo abaabul keeni kara ciidanka dowladda in aan laga furan hubka ay wataan. Al-shabaab ayaa dhowaan weerar ay ku qaadeen deegaanka Ceelsaniini ku dilay ciidamo badan, sidoo kalena qaatay gaadiid iyo hub ay leeyihiin ciidamada. Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo marwada koowaad ee Soomaaliya Marwe Zeynab Cabdi Macalin ayaa ka qayb galay kulan soo dhaweyn ah oo uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u sameeyay madaxdii ka soo qayb gashay meertada 74aad ee Golaha Qaramada Midoobay. Madaxweyne Farmaajo ayaa ku sugan magaalada New York oo uu ka qayb galay shirka Qaramada Midoobay. Waa markii ugu horeysay oo ay kulmaan madaxweyne Farmaajo iyo Trump tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya sanadkii 2017. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maalmaha uu halkaasi ku sugan yahay in uu shir duceedyo la yeesho madaxda ka qayb galaysa shirkaasi, iyadoona ay xusud mudan tahay in shirar hore inta uu joogay uu la galay hogaamiyaasha wadamada Yurub ee ka qayb galaya shirkaasi, isagoona kala hadlaya arrimaha Soomaaliya iyo sidii ay u taageeri lahaayeen Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa sidoo kale halkaasi kulamada uu la qaadanayay madaxda ka qayb galaysa shirkaasi qaaradda Afrika ayaa kulankii ugu saameynta badnaa waxa uu noqday kulankii uu la yeeshay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta, kaasoo la og yahay in Soomaaliya uu kala dhaxeeyo muranka dhinaca badda ah, waxaana baraha bulshada aad u wareegaya hadallo kala duwan oo lagu tilmaamayo amaba ay bulshada ka dhiibanayaan aragti ka duwan aragtida ay Villa Soomaaliya shirka ka soo saartay ee kulankaasi ay ku sheegtay in aan mowqifka badda Soomaaliya uusan marnaba ka tanaasulin, isla markaana uu sheegay in uu u sheegay madaxdii halkaasi ku sugneed ee garwadeenka uu ka ahaa madaxweynaha dalka Masar in kiiska badda uu sidiisa ahaado. daawadayaal guud ahaan waxaan halkan ku soo gabagabeynaynaa wararkii aad kala socoteen channelkeena Daynile TV. inta aan warkan warkixiga ku kulmi doono anagoo isku duuban bahda Daynile TV, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo amaano Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.